ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa idaacadda Jallaqsi. kusoo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta dib ugu laabtay gudaha magaalada dhuusamareeb kadib markii uu garowe uga qayb galay aaskii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya. wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya oo soo saartay war qoraal oo ku aadan dadka ka dhoofaya dalka inay iska baaraan cudurka covid-19. igad oo rajo wanaagsan ka muujisay wadahadalka soomaaliya iyo somalilan. dalka gaabon oo markii ugu horreysay yeeshay haweeney ra-iisul wasaare ah. burcadbadeedii ugu badnayd oo ka dilaacday xeebaha galbeed ee afrika. warkii oo fidsan.